ولا soo dhawaado ku bilaay magacaaga walaal waan dhawahay magacaygu waa Nimcaan Cabdi Cabdi Nimcaan barnaamijkan waa barnaamijka garow ku guuleyso waxa maalgeliyay Shabeelle Bank barnaamijkan hadii aad ku guuleysato waxaan ku guddoonsiin doonaa abaalmarin kuugu talagashay Shabeelle Bank soo dhaw walaal waan dhawahay sidoo kale soo dhaw waxaad ii sheegtaa tirada guud ee wadamada Carabta ee ka tirsan qaaradda Afrika inay su'aasha ma garanayo mayba kaniyo waxa markaad wax ka qiyaas karaysaa isku dayda xaga wadamada isma fiicnin ibad okay Nabi Yusuf مسح شو عيل كجري نبي يوسف waxaan qiyaasayaa inuu ceelku ku jiray 3 cish markaas ma ogtaa sasaylat scopes asas wale su'aasha waad ku guuleysatay Shabeelle Bank hawlaha ay wada maxaad ku bogaadinaysaa Shabeelle Bank waa adeeg fiican oo muddo fara badan soo isticmaalaynay saad garanaysaa waxa laga soo guuriyaa lookash bir sahay milaamil waxaan oo dhan adu adeegii koobaad aynu soo isticmaalay haddaan deegaanka Soomaalida marka waxaan leeyahay shaqadaad haysan si fiican buu shacabku u hadayo maaragtay iyo wax qabadkiisu u tayaya boqolkiiba boqol waxa rajaynaynaa si laba jibaaraan ugu dambeyn maxaa baaqad u diraysaa bulshada waxa baaqoon bulshada u diraya adeegga Shabeelle Bank waa adeeg aan inagu leenahay waa bangi aan inagu deegaan ahaan khaas u leenahay bulshada baaqan u diraya waxa weeyaan inay wixii hantidooda Shabeelle Bank dhigtaan ugu horeyso dhawlaalada ku bilaay magacaaga وعندها ورا الماعي وحرنا محمد قديب محمد برنامجكن waa barnaamijka garow guuleyso waxa taabagaliyay Shabeelle Bank barnaamijkan hadii aad ku guuleysato waxaan ku guddoonsiin doonaa abaalmarin uu kuugu talagalay Shabeelle Bank soo dhaw وعندها ورا su'aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad sheegtay gabadh nabi dhalay nabina guursaday nabina guursaday nabina guursaday nabi Yusuf نبي إسحاق قول دلي من كرنا ولا شيء طبعا سؤال كلام كويديني واحد شيكتا حويان كان عد كلاين حيوان كان عد كلاين عروق جميع عد مو هلا يوم شنكربة للمدة ما أقول دامن للمدة ولا مسك كنا قرا حيوان مهم بقى ما كرنا ولا طبعا اسكو ضيفي عم بعد سميسي لكن ما ذاك قوليسن ولا ان شاء الله وقتيه كان رجينا ان اسكو قوليسن يلا ما سنت ولا soo dhawaado ku bilaay magacaaga magacaygu asmaa walaal asmay barnaamijkan waa barnaamijka garow ku guuleyso waxa taabagaliyay Shabeelle Bank barnaamijkan hadii aad ku guuleysato waxa ku guddoonsiin doonaa abaalmarin uu kuugu talagalay Shabeelle Bank soo dhaw mandoo walaal weydii waxaad ii sheegtaa rasuulkana sallallahu alayhi wasallam mise jiro ayuu markuu dhintay markuu geeriyooday 63 jir 3 su'aal kale aan ku weydiinaya su'aasha kale waxa ku leedahay waxaad sheegtaa qofka qaangaarka waa imsa lafiisu taa garan maayo tii horena balmarintiisi taa ma garanayo dabcan Shabeelle Bank maxaad ku bogaadinaysaa maadaama ay abaalmarin siinaysa dadka waxaan leeyahay xagga taagantiin maanta ka dhaqaaq hore u socda maxaa baaqad u diraysaa bulshooyinka barnaamijyada saan oo kale ka qayb qaatan leeyahay ولا soo dhawaado ku bilaay magacaaga walaal magac Cabdiraxmaan Sheekh Muxidiin weyn Cabdiraxmaan barnaamijkan waa barnaamijka garow guuleyso waxa taabagaliyay Shabeelle Bank barnaamijkan hadii aad ku guuleysato waxaan ku guddoonsiin abaalmarin uu kuugu talagalay Shabeelle Bank soo dhaw waan dhawahay walaal boqolkiiba waan dhawahay su'aasha koowaad aan ku weydiinay waxa ku leedahay waxa aad sheegtaa wadamada guud ee Carabta ee ka tirsan qaaradda Afrika waa imisa wadamada guud ee qaaradda ka tirsan Carabta waa afar weyn afar sano waa labo waa hal iyo bedel su'aasha dabcan waxaan ku leeyahay geela sakadu goorma ay ku waajibtaa sida goorma ku jawaabtaan geela sakadu goorma ay ku waajibtaa markuu intee gaadho saddex jirki ku waajibtaa tirada jida markuu 100 gaadho 100 iyo wuxuu ku waajibtaa 50 صدن حكوا جدا طبعا هي سؤال ما تكون كل سنة طبعا عاد بعض ما تصنتها قف كيف واحد لوجو ترى قال لي بس سؤالين لوجو فايدة سؤال هذاك بيوديسينا سؤال كلا سنة ويتسافين عنه ولا لو كوريسو دوادو كبلاي مقعد ولا لو عنده هاي مقعد وحلا محمد حسن محمود
maxamed oo barnaamijkan waa barnaamijkii garoo ku guulaysto barnaamijka garoo ku guulaysto waxaa taabageliyey shabeelle bangi barnaamijkan haddii aad ku guulaysato waxaan ku guddoonsiin abaalmarin kugu talagalay shabeelle bangi soo dhowow waan dhawahay mar labaad iyo mar saddexaadba waana ka aqbalay abaalmarinta haddaan helana waa sax haddii aan garan weynan mar dambe iyo mar labaad inaan helaan ku rajooyaan insha allah dabcan su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxaa ku leedahay waxaad sheegtaa xarunta guud ee ururka midowga afrika xagee ayay ku taallaa xarunta guud ee midowga afrika xagee ayay ku taallaa waddanka ku taallaa waxaa loo soo gaabinaya soomaan naafa miyaa loo soo gaabinayay waddanka ku taalla iga maqan magaalada ku taalla ma garanayo waxaad ii sheegtaa qofka qaangaadhka ah lafihiis waa imise qofka qaangaadhka lafaha jirka bini'aadanka waa 360 xubnood xubnaha mise lafaha lafaha jirka bini'aadanka haa qofka qaangaadhka lafihiis waa imise qofka qaangaadhka lafihiisa والله هذا 360 حمناد هنا wax ka baxsan oo garanay lafaha bilaanka qofka qaangaadhka ka dhakhtartan baa la weydiin wallahi dabcan waa isku day fiican ayaad samaysay laakiin maad ku guuleysan insha Allah waqtiyo kale aad ku guuleysan doontaa insha Allah ma santa wala tadhow walaal xadiis xaash axmed xadiis oo barnaamijkan waa barnaamijka garo oo guuleyso barnaamijkan haddii aad ku guuleysato waxaan ku guddoonsiin abaalmarin kugu talagalay shabeelle bangi soo dhow waan dhawahay insha Allah wixii ilaahay garasiiyay waan isku day ashkaad waxa ku leedahay waxaad sheegtaa xarunta guud ee midowga afrika xagee ayay ku taallaa taas ma hayo ma garan bisadu sanadkii imse jeer bay dhashaa bisadu sanadkii 3 jeer meelahaas saan filay ma hubtaa sasan aaminsanay aaminsantahay soo malaynaysaa 3 jeer inay dhashaan aaminsanay su-aasha waad ku guulaysatay maxaad ku bogaadinaysaa howlaha ay hayso shabeelle bank aad bay ugu mahadsan yihiin barnaamijka noocan ee laga qayb qaato marka aad bay mahadsan yihiin waa si fiican dhalinyarta iyo cid walba oo hawshan ka qayb qaato boqolkiiba boqol aad bay mahadsan yihiin maxaad ku bogaadinaysaa howlaha oo hayo bankiga shabeelle waxaan ku bogaadinayaa aad bay u mahadsan yihiin howlahan noocan oo kale in la sii ballaariyo ay wadaan boqolkiiba boqol aad bay ugu mahadsan yihiin baan leeyahay waa inaan su-aashaada ku guulaystana waxa iyadana dee waa farxad bay tahay ugu dambeyn bulshada maxaa baaqad u diraysaa bulshada waxaan u dirayaa insha allah ilaahay ka cabsi iyo barwaaqe iyo waxa weeyaan in ay mataqaanaayey iyaguna intooda dhibka badan intooda dhibban ee waxba haysan ay kaalmeeyaan si aynu bulsho horumarto wada noqon insha allah horey soo dhawaado ku bilaay magacaaga Abbas Abdi Geeli Cigaal Abbas waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka garoo guuleyso waxaa taabageliyay shabeelle bank barnaamijkan haddii aad ku guulaysato waxaan ku guddoonsiin doonaa abaalmarin kugu talagalay shabeelle bank soo dhowow waan dhawahay su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxaa ku leedahay waxaad sheegtaa gabadh nabi dhalay nabina guursaday gabadh nabina dhalay nabina guursaday wax wallahi gabadha garan maayo gabadh nabi dhalay nabina guursaday ma garanayo tirada guud ee wadamada carabta ee ka tirsan qaaradda afrika waa imise ma garanayo garan maayo aad baad u mahadsantahay ku mahad celinay walaal soo dhawaado ku bilaay magacaaga magacaygu waa Rashiid Saaq Maxamed Rashiid barnaamijkan waa barnaamijka garoo ku guuleyso waxaa taabageliyay shabeelle bank barnaamijkan su'aalahan ku weydiiyay haddii aad ku guulaysato waxaan ku guddoonsiin abaalmarin kugu talagalay shabeelle bank soo dhawow waan dhawahay aad iyo aad ayaan u dhawahay su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinay waxaa ku leedahay waxaad sheegtaa xawayaankan codka lahayn xawayaanka codka lahayn xayawaankan codka lahayn lafdhabar loogta mise waa lafdhabarlaad xayawaan dhan soo ma maskaan u malayni ma igu bedeli kartaa adoo raalli ah su'aalkan ku bedeli su-aasha kale aan ku weydiinay waxaa ku leedahay bisadu sanadkii imse jeer bay dhashaa yaa bisadu sanadkii imse jeer bay dhashaa hal jeer un baan u malayni 2 jeer bisad soo maheen bisad sanad un bay dhashay iyadu
haa tiradii iyadii miya waxay dhashaa saddex bay dhashaa iska hubso saddex ama afar un bay dhashaa afar bay dhashaa saddex bay dhashaa maxay dee ma hubtaa ma ku daysanaysaa hay haa saddex bay dhashaa su-aasha waad ku guulaysatay shabeelle banki maxaad ku bogaadinaysaa howlaha hayso shabeelle banki waxaan ku bogaadinayaa inay fiican tahay oo aad wax walbaad dhigataan intay shirkaddii kale oo shirkaddii kale aad aadaan waxaa ka fiican tahay shabeelle banki oo aad deegaankaaga ku helayso aad lacag ku dhigan kartaa aad isticmaali kartaa shabeelle banki waxaan leeyahay way fiican tahay lacagta loo soo dhigto la isticmaalo waxaa leeyahay shabeelle banki waa shirkad fiicane maxaa baaqad u diraysaa bulshada ugu dambayn bulshada weyn oo waxaan ugu dirayaa shabeelle banki inay adeeg fiican ay tahay lacag mar walbaad kasoo aad la soo bixi karto aad gashan karto waxaan ku leeyahay waxaan ummadda Soomaaliyeed dhan aan ugu bogaadinayaa inay shabeelle bank ay lacag dhigtaan ka soo baxaan shirkaddan meel u gaarsiiyaan ugu horreysay dhawalaado bilaay magacaaga dhawaa walaal magacaygu waa Cabdullaahi Bashiir barnaamijkan waa barnaamijkii garo oo guulayso barnaamijkan haddii aad ku guulaysato waxa kugu doonsiin doonaa abaalmarin uu kugu talagalay shabeelle bank insha Allah soo dhawaan su-aasha aan ku weydiinayo ugu horreysa waxay ku leedahay waxaad sheegtaa gabadhii nebi guursatay nabina dhalay gabadhii nebi guursatay nabina dhalay waxay ahayd nabiyullaahi yuusuf nabiyullaahi shucayb gabadhiisii hawow hadda magaceeda waan garanaa nebi yuusufna u guursaday nebi shucaybna ugu dhalay nebi shucayb baa dhan nebi yuusuf a guursaday dabcan su-aal kale aan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa nebi yuusuf imse xushuuxeel ku jiray 12 ma garanaya 12 aad baad mahadsantay maad ku guulaysan dabcan waxaa filaya inaad waqti kale ku guulaysan doonto insha Allah haye daawadayaal intaa waxaa inoogu dhannaa barnaamijkeennii garo oo guulayso barnaamijka garo oo guulayso waxaa maalgeliya shabeelle banki barnaamijkan ayaa wuxuu si toos idinkaga yimaadaa magaalada Jigjiga caasimadda deegaanka Soomaalida barnaamijkan ayaan toddobaadkiiba hal mar idiin soo tabinaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anoo ahaa Maqdis Nuur Gallery qaybta kamarada iyo farsamadana waxaa naga caawinay walaalkay wariye Nimcaan Ilkacase daawadayaal barnaamijkan iyo barnaamij lamid ah intaynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo